kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin shir gaar ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kaga hadlayeen arrimaha Soomaaliya ayaa goordhow soo idlaaday falanqeyn ayaanu idinkaga haynaa waxyaabihii shirka looga wada hadlay wararka kale caawana waxaa kamid ah hogaamiyaasha galbeedka Afrika ayaa wafdi u diri doona dalka Mali iyadoo ciidamada dalka uu soo food saaray cadaadis caalami ah sidee fayraska corona u saameeyay samafalka Soomaaliya waxaanu la hadalnay qaar kamid ah qoysas ku tiirsan gargaar bini'aadanimo ammaanka Soomaaliya ma faraha ayuu ka sii baxaya dooda khamiista ee caawa ayaanu ku eegi doonaa kala soo BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeenkan daawadayaal aniga Maxamed Cabdi Xareed la socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi gaar ah oo ay kala hayeen xaaladda Soomaaliya kordhaweyd soo gabagabeeyay iyadoo looga hadlay arrimaha ammaanka doorashooyinka iyo siyaasad loo dhan yahay sidoo kale shirkaasi waxa lagu faaqido oo looga wada hadlay arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya haddaba waxa toos khadka uga jira barteena xarunta wararka Mawlid Xaaji Cabdi oo wariye ka tirsan BBC-da oo si toos ah ula socday shirkaasi Mawlid soo dhawow shirka bal inooga waran waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda ka soo qayb kasta shirka maanta hadii aad noo soo koobto Mawlid ma hasantahay shirkani wuxuu ahaa kii 8755 ee ay yeeshaan xubnaha golaha ammaanka jamciyadda quruumaha midoobay si gaar ah waxa aad looga hadlay arinta ammaanka ee Soomaaliya gaar ahaan weerarada al-shabaab ay soo qaadayaan oo muddooyinkii ugu dambeeyay kordhayay arinta doorashooyinka dhinaca bini'aadanimada markaynu si gaar uga hadalno dadkii ka hadlay waxa kamid ah James Iswan wakiilka gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya wuxuu asagoo si qoto dheer uga nuuxnuuxsaday ahmiyadda ay leedahay siyaasad loo dhayahay iyo gaaritaanka doorasho Soomaaliya uga dhacda si nabada wuxuu soo hadal qaaday in qaramada midoobay ay ka sugayaan in wax wanaagsan ay ka soo baxaan shirka imika ka socda magaalada Dhuusamareeb oo ay leeyihiin madaxda Soomaalida iyo madaxda federaalka dawladaha dawlad goboleedyada wuxuu si gaar ah laakiin u xusay in qaramada midoobay ay ka walaacsan tahay ka soo qayb galaanta shirka ee Jubbaland iyo Puntland hogaamiyaashooda madaxda kale shirka ka hadashay waxa kamid ah safiirka Mareykanka u qaabilsan ee qaramada midoobay waxay si gaar ah iyada u xustay in ay jirto dib u dhac weyn oo ka jira habkii Soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen dhinaca ammaanka sidaas si lamid ah waxa dhinaca ammaanka isagoo ka hadlay ambassador Madeira oo u qaabilsan midowga Afrika ama AMISOM Soomaaliya wuxuu asna ka hadlay in ay si gaabaysa u socoto sida hadalka uu dhigay dhinaca markay timaado ciidamada Soomaaliya habkii loo qorayay safiirka ama wakiilka joogtada ee Soomaaliya Abubakar Cusmaan Baale isna shirka uu ka hadlay wuxuu si qoto dheer uga hadlay dhinacyada dib u heshiisiinta socda arinta ku aadan deyn cafinta iyo wali wada hadallada socda qodobadiisa waxa kamid ah inuu si gaar u xusay uu yiri waa inaan loo dhig raaricin waxa uu ugu yeeray qaswadayaasha si guud marka Maxamed u fiiriso shirka waxa sidoo kale aad loo hadalhayay arinta doorashooyinka oo dhinaca markay timaado safiirka UK oo kale waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga gudbo siyaasadda qabaa'ilka oo loo gudbo siyaasad loo dhan yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isna qodbad ugu talagalay shirka ayaa nuqul kamid ah BBC-da heshay waxaa si gaar ah loogu xusay ahmiyadda ay leedahay in saxaafadda Soomaaliya ama journalistayaashu ay helaan xorriyad ay ku shaqeeyaan iyadoo si gaar ah loo xusay qodbada loogu xusay weerar kala duwan oo Soomaaliya ka dhacay oo ay muujinayso in weerarada qaarkood ay soo xoogaysanayaan dhinaca kale waxaa si gaar ah uu Abubakar Cusmaan Baal u xusay in loo baahan yahay in la ixtiraamo qaanuunada ama qodobada ay gaaraan baarlamaanka Soomaaliya marka si guud waxa moodaa inuu ahaa si gaar ah arrinta Soomaaliya loogu faaqiday Maxamed gartay Mawlid Xaaji Cabdi aad iyo aad ayaad u mahadsantahay وهجاج هجامياشا ورقبلتك نراهذ قلبتك أفريقيا كوس أي شيء إن أي سور روي كران عنقبتين يكسر روي كران سراكيشي كل لها في جنبي ثلاثي مالك دعيكاس ومدحوين إبراهيم بابكر كايتا
lagu khasbay in uu iscasilo kadib mudaharaadyo dalkaasi ka dhacay. Hogaamiyaasha ayaa wafdi ay hogaaminayaan waxa ay hogaamiyaashu wafdi u diri doonaan iraahday dalka Mali iyadoo ciidamada dalka uu soo food saarayo cadaadis caalami ah oo dheeraad ah. ECOWAS ayaa horey u shaacisay inay joojisay wada shaqaynta Mali iyadoo lagu dhawaaqay in xuduudaha laga xirto. Hogaamiyaasha ayaa sheegay in afgambigii militariga ee dalka Mali ka dhacay uu wajahayo ama uu noqonayo mowjado cadaadis ah oo kaga imaanaya caalamka. Qaramada Midoobay, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa dhaleeceeyay waxa ay ugu yeereen xukun marorsi. Afhayeenka xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sidan yiri. xogayaha guud wuxuu si xooggan u dhaleeceeyay afgambigii militari kaasi oo lagu xiray madaxweyne Kenyatta iyo xubno ka tirsan dowladdiisa. xogayaha guud wuxuu ku baaqayaa in si dhaqso leh loogu soo noqdo dastuurka iyo sharciga dalka Mali. wuxuu sidoo kale muujiyey inuu si buuxda u taageersan yahay Midowga Afrika iyo ECOWAS dadaalkooda ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada hadda jirta. وهاجاك كورنيل كهوجامينيا عيدن كأفجنبي جيستي ولا ومجعبه أسيمي جويتا أيا فلك عيدن كيساقنا معنيه ما قاذ كرنو إن خلط كلا أودعو سيدا درادد فرقلنتي عيدن كتلاذي دعدي وحاي هايد مدتك يدلك مالي لغهر مرينا يوح والبا وسببت أن دتك أقو حقيقين تاجر ذنا حق أمالها إني دبتو سيسعوتو وهاجاك دقدقاق معارضka ay ugu weyn dalka Mali ayagoo abaabulay mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeeday dawladda xukunka laga tuuray waxay soo dhaweeyeen talaabada militariga waxayna sheegeen oo carabka ku adkeeyeen in aanu afgambi ka dhicin dalka Mali. bien sûr dabcan udub dhexaad ayaanu ka noqon doonaa geedi socodka waxaanu barbar socon doonaa ciidamadeena amniga si halganka geesinimada leh ee bilaabmay 1991 looga gaaro go'aan guul leh. beesha caalamka gaar ahaan Faransiiska iyo Midowga Yurub waa inay lahaadaan aragti dheer oo ku aadan in afgambigani uusan ahayn afgambi toos ah oo ka hor imaanaya dimuqraadiyadda. وهاجاك حكت مالي هلكا أيام كنا في وركنا دنبا أياد كجا بجن دونتاني طبعا فيروس كورونا وحوسامين وين كوي شيء قيبة بدن أو كم إذا هنولش جودهان سوماليا بقول كي بافري لباتن دتك وح أي كتير سنين كركار بين آدمي مؤتنية مركي ودي عيسف مركا فيروس كورونا هولها سما فلك دلكا وحكويمي كابسبان وريها BBC ده مقالة مقدشة بيلاشيجو أيالها هذا شيء قار كم إذا قيسس كتير سن كركار كبين آدمي وربحين تناياني نوصاترتي waxay ka timi masaafo fog si ay isku diiwaan geliso oo u hesho gargaar bini'aadanimo. diiwaan gelinta ka horse waa inay u hoggaansantaa awaamir cusub oo loogu hortagayo faafka fayraska corona. Xasi Cumar Gasle kaamka ay degan tahay waxay uga timi 12 caruur oo kan ugu yar yahay 1 sano jir. dhammaantoodna iyada bay ka sugayaan wax ay quutaan. iyada iyo caruurteedu waxaa soo barakiciyay biyo baxo horaantii bishan ka dhacday Afgooye. idina uma maqna aan uma qodna. duruufta nololeed ay ku jirto waxa ugu biirsamay cabsida ay caruurteeda uga qabto fayraska corona kaas oo sidoo kale saameyn ku yeeshay gargaarka bini'aadanimo ay heli jirtay. dhan kasta dib u dhac iyo walwal ay qabtaa. barnaamijkii hore wuxuu ahaay dadka way isku dhaxdaasanaayeen wax oo jiray cudur markaas ma jirin. hadda cudur waxa ay mid corona virus la dhahayo dadkii hadda cudurkaasi hortagii wixii loogu tirigalay alaab waxa nala siisan ka lagu xiranayo iyo waxa nala siiyay faraxal oo gacmaha lagu dhaqanayo oo jeermiska liskiga dilayo iyo tiis oo markaas gacmaha ku tirtiranaysid. ugu dambeyn waxay nasiib u heshay in iyada iyo qoyskeeda la diiwaan geliyo. $60 ayay bil kasta helayaan. waa maalintii $2 oo kaliya qoys ka kooban in ka badan 13 qof. kuma filna balse waa gacanta kaliya iminka heli karto. mashruucan waxaa iska kaashaday hay'adaha Norwegian Refugee Council iyo WFP. sanadkan fulinta mashruucan iyo guud ahaan hanaanka gargaarka loo gaarsiiyay dadka u baahan ayaa isbedelay. waxaa dhacday markii lagu dhawaaqay kayska ugu horeeyay inuu wadanka ka dhacay bishii 3aad ee sanadkan in cabsi badan ay abuurantay in hay'adaha inta badan ay sameeyeen in shaqaalahooda ay guryaha ka soo shaqeeyaan si loo yareeyo in xanuunku uu ku faafo shaqaalaha dhexdiisa ama marka ay fiilka tagaan ay tagaan.
waxaa kaloo saameyn yeelatay markii dalka ay ka dhacday in la joojiyay safaradii gudaha iyo dibadda isku socodka laftigiisa wuxuu keenay dhibaato badan shaqaalo badan ayaa ku xayrmay meelo kala duwan shaqaalihii ajnabiga oo wadanka imaan waayay taas laftigeeda waxay yeelatay saameyn iyadoo maalin ka hor la xusay maalinta caalamiga ee bini'aadanimada ayuu wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dabiiciga ee dowladda federaalka uu ka hadlay sanadkan duruufta adag ee covid-19 uu geliyay shaqada gargaarka inkastoo horaanba caawinaada ee dowladda siiso dadka u baahan gargaarka uu gaabis ka jiray waxaan sanadkan safmarka covid-19 u sii murjiyay xaaladda bani'aadanimo wuxuu abuuray baahiyo hor leh ee gargaarkana abuuray meelo cusub oo aan horey baahi ugu jirin sida magaalooyinka wuxuu sii kordhiyay culeysyada shaqo oo ay wajahayeen bulshada ka shaqeysa gargaarka in ka badan 24% dadka Soomaaliya ku nool noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka ay ka helaan hay'adaha bini'aadanimada ka shaqeeya dadkan waxay inta badan u nugul yihiin fayraska corona oo dhan walba dib u dhac weyn ku keenay caawinaadii ay heli jireen lama oga sida uu noqon doono xaalka dadkaas haddii ay xaaladdu sida ay hadda tahay ku sii jirto Bella Sheego BBC Muqdisho وهاجاج مرة واحد نقل سعون كرتان BBC Somali Facebook فلان راذي BBC News Somali halkaas waad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamkana waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Twitter iyo Instagram iyo waliba barteena YouTube-ka wali waxaa inoo soo socda oo aad qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan dooda khamiista ee caawa aanu ku eegi doono xaaladda ammaanka Soomaaliya miyay ka sii daraysaa maxaa sabab ah qadar yarna shaahada badat habeen wanaagsan mar labaad wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka aniga waa maxamed cabdi xaraar baladan xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn shirka golaha amniga qaramada midoobay ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya ayaa goor dhow ku soo idlaaday magaalada New York waxaa laga hadlay arrimaha ammaanka siyaasad loo dhan yahay iyo arrimaha bini'aadanimada hogaamiyaasha galbeedka Afrika ayaa wafdi u diri doona dalka Mali iyadoo ciidamada dalka uu soo food saarayo cadaadis caalami ah وهاجك دودا خميستا عاوة وحين كو ايجي دونا حالة أمان الصومالية وتضباطي ugu dambeysay kasii daraysay waxa dhacay weerar kala duwan qaraxyo iyo dilal qorshaysan waxa ay weerar ka dhaceen saldhigga ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin nagaarka istaadiga Muqdisho xabsiga dhexe hotel caan ah oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo weerar ka dhacay balad xaawe qarax lala eegtay wasiirka waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya طبعا أمانك الصومالية مدبا ونقلا إمين كسي وحل أورانكرا وسين حوسيا برنامج كيانو كو يقدونا سببتا إيو سيالها وحلوغا قابان كارو برنامج كيال قيب كليا عبد السعيد موسى علي أو على تليها أمنيغا قران كمدحوينها الصومالية أو مقدشو خادكا إسكايب كتوس وغاجيرا إيا إسماعيل عثمان أو هوري أسو نقضي أغاسي مكوحيان كي هاد النبات سوغيدا الصومالية وكسوغان magaalada Columbus gobolka Ohio dalkaasi Mareykanka mudanayaal soo dhawaada labadiina waa mahadsantiin barnaamijka nagala soo qayb gashaan aan ku bilaabo Cabdi Saciid Cabdow maxaad ku macnayn lahayd xaaladaha amni xumo ee xargaha goostay ee dalka Soomaaliya waqtigan
walaal ma santahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta intii dhimata Allah naxariisto runtii fal xun oo ahaa falkaas hoteelka ka dhacay Elite liida ku yaala Allah naxariisto intii dhimatay dad aan naqana ku jireen dad masaakiin oo bajaaj wata oo dariiqa iska jooga ku jireen oo shacab oo waxba galabsan dad meesha u tagay inay hawo ku soo qaataan markay shaqadooda ka baxaan ba ku dhintay runtiina waa fal aad u fool xun waxaana kaloo mahad aan rabaa inaan usoo jeediyo ciidamadii booliiska ahaa iyo ciidamada amniga dowladda oo dadaal dheer sameeyey dad badan soo badbaadiyey in ka badan 200 oo qof oo meeshaas ku jiray ayagana waxaan ugu maaragtay congratulate garaynaa shaqadaas ay qabteen waa nasiib darro inaan la cambaarayn nimankaas falka xun geystay ammaanka horta faraha kama bixin walaal xoogaa waxa fiican moogtahay in waxa facts iyo figures laga hadlo factska jira waxa waaye laga bilaabo bishii October 2019 ilaa July 2020 magaaladan waxba kama dhicin waxaan la dhaho baabuurtan la isku qarxinayo iyo waana laga hortagay waxaana keenay in laga hortago dadaalkii la sameeyay dib u habeynta ciidamada lagu sameeyay ciidamada mushaarkooda la siinayo raali noqo aan ka dhex galo qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo maanta hadlayay wuxuu sheegay waxay leedahay facts hala keenay iyo figures wuxuu yiri 800 ku dhawaad dhacdo amni ah ya dalka Soomaaliya ka dhacday February ilaa hadda faraha wuu ka baxay 800 oo dhacdo horta ma ogtahay taas laftigeeda facts inaan ku salayso intaas aan ku sheego marka intaas oo dhacdo horta 20% ku dhawaad waxa waaye qabiilo isdagaalayo 40% iyo xoogaana waa al-shabaab incidenteska ay ka sameeyeen wadanka oo dhan oo waxa shaqo kuma leeyihiin ma adigu sug shaqaynaan ku leenahay ku sheegay dagaalada qabiilkan kaaga bilaabay weligaa maadan ka fargarayn laakiin tusaale waxaan ku siinayaa from Mudug ilaa Lower Shabeelle dawladda ciidamada ay u direysay inay kala dhex galaan qabiilada ay isku dayaan in dib heshiisiin loo sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka sii shaqaysay inay qabiiladaas heshiis laga dhex dhaliyo in fidnadaas la abuuro qaar qabiiladan wax iska laayeen in ka badan 100 qof عبد السعيد aad iyo aad u mahadsantahay waxaan filayaa inaanan waqtiga isaga lumin waxyaabo aanan barnaamijkaana ku saabsanayn haddii aadan farakabax amni u aqoonin toddobaad gudaheed in 50 qofood ku dhawaad ay Soomaaliya ku dhimato waxaan weydiinayaa Ismaaciil sidee u aragtaa xaaladda amniga Soomaaliya maxamed oo salaamaya adigii dhammaan daawadayaasha waxaan kula salaamayaa saaxiibkay Cabdi Saciid xaaladda amniga ee Soomaaliya inuu faraha ka sii baxayo cid laga wareysanayo aniga kulay ma arko waa runta warbixintii xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in 775 fal dambiyeed oo ay sameeyeen kooxda al-shabaab oo isugu jira dilal qorshaysan iyo qaraxyo inay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya guud ahaan marka waa number aad u badan marka loo fiiriyo falalkii ay sameyn jireen kooxda al-shabaab waxa intaas sii dheer in xabsigii dhexe ay xub loogu geeyay guddi uu saaray kusimaha maxaan ku raahdaa ra'iisul wasaaraha guddi uu saareen ay shalay soo saareen in hubka loogu qariyay jawaano liin iyo hilib lagu geeyay xarunta dhexe ee xisbiga marka haddii aysan taas ahayn in amnigii faraha uu ka baxay maaragtay xanta badan ee la sheegayo wada shaqaynta shabaab iyo ka dhaxaysa hay'adaha amnigana ay run u ekaanaysa aniga ma aqaan waxaan ku tilmaamay عبد السعيد adiga ayaan kugu soo noqonayaa haddii aan su'aasha kale ku weydiiyo عبد السعيد magaalada Muqdisho wadooyinkeeda waa ay wada xirxiran yihiin dadweynaha caadiga iyo ganacsatada labaduba daala dhac ay taagan yihiin danbaas uga dhigteen in aad amnigooda ku sugaysaan kooxaha waxa qarxinayana waxa leeyahay عبد السعيد halkii ay doonaan inay tagi karaan oo tusaale ugu dambeeyay uu kugu filan yahay taliyaha amniga qaranka ayaa tahay si kale lagu dayo marna maadan ku talin fiir walaal ma ogtahay aniga facts baan ka hadlayaa adigana waxaan rabtaa inaad dad dhintay
iyo dan dhib loo geystay inaad sensation ka raadiso laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego factiska jira waxa waaye laga bilaabo waqtigan kuu sheego horta 800 sax maaha walaa 700 sax maaha waqtiga laga haddaad rabto elite hotel for example hadda tusaalaan ku siinayo waxa ka dhacay waxa waaye complex attackgaas kii ku xigay wuxuu ahaa kii ka dhacay wasaaradda shaqadii shaqaalaha ee dhacay May ama March 2019 yeah haddii marka aan 23 March buu dhacay 2019 waa kii ku xigay waa ciidamadu waxay sameeyeen dadaal aan caadi ahayn inay ka hortagaan waxaan loo yaqaan complex attacks sida og tahayna dowladdan ilaa 2012 dhacdooyinka dhaca marka la isu qiyaaso marna ma dhicin yani in waxaan aniga shaqadeedii hore waxay ahaan jirtay regionka oo dhan baan waxaan ka fargarayn jiray violencega regionka home ka jirta Horn of Africa Ismaaciilna waa og yahay Soomaaliya maalin bil walba waxa ka dhici jiray 2 complex attacks baa ka dhici jiray 2 bil kasta marka waa iska caadi baa leedahay Soomaaliya tan qofna looma xisaabinayo qofna shaqada loogama qaadayo aan dhameeyo wax walaal adoo raali waxa weeyaan waxa la rabaa si systematic waxa la dagaalamayo waxa waaye niman diyaarsan oo qarax diyaarina meelaha qaraxa ku diyaariyeen ugu tagnay waa ka soo burburinay dhaqaalahooda aruuriyaan oo dadka ka qasbadaan ama meel kale uga yimaado meelay ku xareystaan meelay ku mobile money wax la dhahay isticmaalaan waa gartay su'aal degdeg aan ku weydiiyo waqti badan ma haysano maanta kama wada hadli karno arrintan iga raali noqo Cabdisiciid su'aal degdeg aan ku weydiiyo Francesco Madera maanta hadlay wuxuu yiri waad yarayseen oo aad ka gaabiseen qorista ciidanka sidee ula dagaalamaysan kooxdan aad sheegaysay inay xoog badan yihiin hadda tan ba laftigeeda fahmad u baahan al-shabaab la dagaalankeeda maaha ciidan in numberkooda la qoro ciidanka registrationkooda iyo mushaarkooda in la siiyo iyo in la ogyahay ciidanku meeshii joogaan iyo cidda yihiin boosaskay joogaan Ismaaciil waa maasanta Ismaaciil ammaanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya kaliya shaqo kuma lahan oo maamul goboleedyo ayaa jira oo ayaga agtooda ay wax ka dhacaan miyaanan ahayn in loo wada dad kale ay ka wada qayb qaataano isku dhinac looga wada jeesto sideedaba wadan waxa lagu qiimeeyaa labo waxa lagu qiimeeyaa siyaasaddiisa amniga iyo waxa lagu qiimeeyaa siyaasadda guud ee dalkaas marka haddii siyaasaddii amniga ay maaragtay aysan jirin oo maaragtay amnigii faraha uu ka baxay wada shaqayntii dowlad goboleedyadii dowladda dhexe ka amni ahaan aysan jirin tii siyaasaddana aysan jirin waxaa meesha imaanaya waxa la yidhahda security vacuum kaasoo u maaragtay waxyeeleynayo dhammaan amniga dhaqaalaha wuxuu waxyeeleynayaa amniga shacabka wuxuu yeeleynayaa amniga siyaasadda marka waxaad arkayso isqanqabsiga ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee dhexe wax kale ma aha waxa waaye waxaana meesha jirin oo dhacay maaragtay siyaasad amni oo heshiis lagu yahay London May 2017kii waxa shir baa ka dhacay oo lagu go'aamiyey in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ay leeyihiin dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waxa kaloo oo halkaas ka dhacay maaragtay oo ka soo baxay waxyaabihii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in la dhammaystiro dastuurka iyo in dalka loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah afartii qodob ee London lagu soo heshiiyey May 2017kii wax ka hirgalay oo ka fulay malaha haddii aan ku jirno 2020ka ayay dowladdu waxay mashquul iyo ahmiyad siisay doorasho qof iyo cod ah oo aan la ogyahay inaan meel aysan waddanka maanta ka dhici karin waxayna gadaal u dhigtay maaragtay la dagaalankii kooxda al-shabaab iyo inay sugto amniga dalka iyo inay maaragtay mas'uuliyadda Ismaaciil su'aasha ugu dambaysa Cabdisiciid ayaan siinayaa Cabdisiciid inaanay shaqaynayn waxa Soomaaliya hadda joogo waanu ognahay oo maalin walba meed dhiig uu soconayo tala kala ma haysan talada waa ku sheego waxa weeye horta waxaan wax emotion ku dhisan maaha maalina runtiina waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo waxaan waxay ku dhisan yihiin caqli iyo siyaasad iyo waa waqti dheer long term investment waa ciidan in la register gareeyo ciidan in la tababaro Cabdisiciid Ismaaciil aad u maasantihiin barnaamijka intaas ayuu ku soo idlaanaya waqtiga ayaa naga dhamaaday intaanu mar kale dib u kulmi doonaan waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabad kale